shirweynahani oo ka dhacay waddanka Turkiga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay iyadoo shirkaani loogu magac daray Masjidul Qudus. waxaa soo qaban qaabiyay baarlamaanka dowladda Turkiga. shirkaani ayaa ka soo qayb galay 70 dowladood 634 baarlamaan. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxda waddankani oo ugu horeeyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani Turkiga. ugu horeyn waxaa ka hadlay mudane Salmaan Maxamed Kaarshe oo ah konsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Turkiga. bismillaah oo ku salaamaya Joker adigii TV-ga qarankaba kaas wuxuu dhacay si aad u qurux badan wuxuuna ku soo dhamaaday runtii si aad u fiican dhammaan waxa la islaaf kartay halka laga sii wado ambaqaadka markaan u soo noqdo anaga safaradahan waajibaadkaygu waa intaaba inaan koordinada gareyno wufuudda imaanaysa Soomaalida inaan dhinac istaagnaano inaan markaa maasha Allah si wanaagsan bay nagu dhacday. mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa gudoomiyaha aqalka sare wuxuu sheegay in Soomaalida ay taageersan tahay mar walba shacabka reer Falastiin. kaalintayadii ka jeedinay taageeradii weligeedba shacabka Soomaaliyeed u hayay ayaanu weli u haynaa oo aanu uga soo qayb galnay inaan codkayaga ku taageerno shacabka Falastiin iyo caasimadooda Quds inay tahay caasimadda Falastiin inay ahaanayso caasimadda Falastiin oo aan weligeed yaalaheed ayna ka dhacay. bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay 17 December sanada 2018 maalinimo Isniina wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ujeedo magacaabis wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska kadib markii uu tixgeliyay laga maarmaanimada in la buuxiyo xilka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo banaanaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waa uu xilka wasiirnimo maanta ay taariikhdu 17 December 2018 u magacaabay Mudane Cabdi Aadan Hoosow. wasiirka cusub waxaa la farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ula wareego xafiiskiisa. waana mahadsantiin. milatariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 62 ka mid ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 6 duqeyn oo Sabtidii iyo Axaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa sheegay in 4 duqeyn ah la fuliyay Sabtidii isla markaana lagu dilay 34 mintidiin ah iyadoo 2 duqeyn oo dheeri ah oo dhacay Axaddiina lagu dilay 28 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. bayaan ka soo baxay Africom ayaa lagu yiri Africom iyo saaxiibadeena Soomaalida waxa ay fuliyeen weerar kansil looga hortago in argagixisada ay goobaha baadiyaha ka dhigtaan gabaad ay ku qorsheeyaan ku hagaan kuna qortaan dagaalyahano fuliya weeraro mustaqbalka. bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeymahan oo kamid ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lala beegsado Al-Shabaab aysan waxba ku noqon dad shacab ah. حسن قال مرشحين تمان تهضلي وحي كلا هايين أمباسادور سيد أحمد الشيخ طاهر ومرأة هانجرة تنجرها سوماليا دلك يوغندا iyo Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen oo xildhibaan federaalka ka tirsan iyo wasiirada ka soo noqday dawladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya isagoo haddana dawladda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wasiirka ahaa inkastoo iska casilay markii uu sheegay inuu tartami doono xilkan. labada murashax waxa ay xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka horjeediyeen barnaamijyadooda siyaasadeed ay doonayaan in lagu doorto si ay u hogaamiyaan 4 sano ee soo socota maamulka Koonfur Galbeed. maanta si ka duwan shalay ayaa amniga hoolka baarlamaanka loo adkeeyay iyadoo ciidamo badan la soo dhoobay. shalay 3 murashax ayaa hadashay Aadan Maxamed Nuur Saransoor Xuseen Cusmaan Xuseen iyo Ibrahim Macalin Nuno. 5 murashax ay guddiga doorashadu sheegeen in maalinta Arbacada ah ay u tartami doonaan xilka madaxweynaha. waxaa ka maqan qofkii lixaad oo ah Sheekh Muxtaar Robo Cali Abu Mansuur oo guddiga doorashadu markii hore shahaadada siiyay isla markaana la maleynayay inuu tartanka ka qayb gali doono laakiin maalintii Khamiista ayaa laga soo xiray magaalada Baydhabo. wuxuu hadda ku xiran yahay magaalada Muqdisho. dabcan sida muuqata doorashada kama qayb gali doono. berrito waxaa la samayn doonaa in la diyaariyo holkii doorashadu ka dhici lahayd isla markaana xildhibaanada loo sheegay qaabka codaynta u dhici doonto. maalinta xigtana waxaa la ogaan doonaa cidda
madaxweyne ka noqon doonta koonfur galbeed oo bedeli doonta madaxweynihii iscasiday shariif xasan sheekh aadan. amniga magaalada baydhabo maanta uu wanaagsanaa, noloshu caadi bay kusoo laabatay, iskuuladii dib baa loo furay, ganacsigii sidaas oo kale, laakiin weli boqolaal ka mid a dadkii mudaharaadayay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ayaa xabsiyada weli ku jira. waan gartay Ibrahim. dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa shir jirayd ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda koonfur galbeed, marka maxay ku sheegeen shirkaasi jirayd? waxay soo saareen baaq ka kooban 6 qodob. qodobka koowaad waxay leeyihiin waa in la ilaaliyaa sarreynta sharciga iyo ku dhaqankiisa, isla markaana loo hoggaansamaa lana aqbalaa dalabkii gudoomiyaha golaha shacabka, golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed, xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda koonfur galbeed, dalabkaas oo ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si loo ilaaliyo bay yidhahdeen maslaxadda caamka ah, danaha qaranka, midnimada iyo isu urfiyoobaanta shacabka Soomaaliyeed, isla markaana loo helo jawi degan oo saamixi kara doorasho xor iyo xalaal ah. waxay kaloo ku baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii lagu suurtagelin lahaa in heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran oo keeni karta xalka gaaridda doorasho ay ka wada qayb galaan dhammaan murashaxiintii shahaadooyinka qaatay. waxay kaloo sheegeen in ay tahay in la soo daayo dadka sida sharci darrada ah loogu xiray sida ay warka u dhigeen, iyagoo gudanaya xuquuqdooda dastuuriga ah ee uu fasaxayo dastuurka jamhuuriyadda federaalka. waxaan ugu baaqaynaa bay yidhahdeen shacabka koonfur galbeed inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida iyagoo ku dhaqmaya qodobka 2aad ee dastuurka jamhuuriyadda oo u fasaxaya inay ka qaybgeli karaan, abaabulan karaan banaanbaxyo nabadeed oo ay ku cabirayaan dareenkooda iyagoo aan cidna uga baahnayn inay ogolaansho ka helaan. shacabku waxaan xasuusinaynaa bay yidhahdeen xikmadda oranaysa nin libaax nin ganay iyo nin galaday labada og. waxaa kaloo ay xildhibaanadaasi baaqooda ku sheegeen, baaq ay u direen madaxda dowladda federaalka oo ay ku sheegeen ama ay ku dalbadeen in la joojiyo waxa ay ugu yeereen cadaadiska iyo cagajuglaynta lagu hayo guddiga doorashada, madaxda kumeel gaarka ee maamulka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed, taasoo yidhaahdeen waxay xadgudub ku tahay xorriyadda dastuurka ah. baaqani wuxuu u dambeeyey baaqiyo isxigxigay oo ku aadanaa in doorashada koonfur galbeed dib loo dhigo, laakiin guddiga doorashada iyo maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed waxay ku adkaysanayaan in Arbacada ay doorashada dhici doonto. xasan dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku gacan saartay qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka Mareykanka ee ku baaqay in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada uu siiyo dagaalka Sacuudiga ee dalka Yemen, isla markaana dhaxal sugaha dalkaasi ku eedeeyay dilka wariye Jamaal Khashoggi. bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri boqortooyada waxa ay cambaareynaysaa qaraarka aqalka sanadka Mareykanka ka soo baxay oo saldhig looga dhigay eedeymo aan hubnayn, waxaana ay diidaysaa faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Riyaad ayaa ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxay ugu yeertay xushmad darro lagu sameeyo xeerarkeeda, waxaana ay ku sheegtay in qaraarkan uu fariin khaldan u dirayo dadka doonaya inay khilaaf ka dhex abuuraan xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Yemen Martin Griffiths ayaa ugu baaqay isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo iyo Xuutiyiintu in ay dhowraan xabad joojintii lagu heshiiyey Khamiistii tagtay kadib toddobaad ay wada xaajoodyo ku lahaayeen meel ku dhow magaalada Stockholm ee dalka Sweden. laakiin afhayeen u hadlay Xuutiyiinta oo ku sugan Sanca ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhaqan galayso laga bilaabo Talaadada berita. wariyaha VOA-da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya. telefishanka taageera kooxda Xuutiyiinta ee Al-Masira ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo iska caabinaya weerar lagu soo qaaday bar control oo ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Xudayda. sidoo kale duqeymo goosgoos ah ayaa laga soo sheegaya agagaarka magaalada tan iyo markii Khamiistii ay labada dhinac ku heshiiyeen xabad joojin ka dhalatay wadahadaladii Sweden ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay, sida uu faahfaahinayo afhayeenka Xuutiyiinta محمد البخيتي. للأسف الشديد أن دول العدوان ومرتزقتها استمروا في القصف المدفعي وأيضا بالحاونات. waxaan aad uga xunnahay in dalalka cadowga ah ee duulaanka nagu soo qaaday inay weli sii wadaan duqayntii iyo madaafiicdii ay nagu soo ridayeen. tan iyo shalayto dowladaha isbahaysiga 12 mar ay duqeeyeen magaalada Xudayda. afhayeenka militariga ee Xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa isaguna sheegay in uu rajaynayo in Sacuudiga iyo xulafadiisu ay tixgelin doonaan xabad joojinta oo lagu wado inay salaasada dhaqan gasho. warbaahinta carabta ayaa sheegaya in kormeerayaasha aan hubaysnayn ee ka socda qaramada midoobay ay maanta gaari doonaan dalka Yemen sida uu dhigayo heshiiskii Sudan.
wasiir ku-xigeenka arrimaha xuquuqda aadamaha ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee yemen nabiil cabdilxafiid ayaa warbaahinta sacuudiga u sheegay axaddii in xuutiyiintu ay weli weeraro geysanayaan waxaana uu ku eedeeyey xuutiyiinta inay biliqaysanayeen hanti badan oo dadka shacabka ah ay leeyihiin 3 maalmood ee lasoo dhaafay waxaana uu xusay in xukuumadda cabdirabbo mansuur ay u jawaabi doonto xuutiyiinta haddii ay xabad joojinta xaq dhowri waayaan telefishanka almayaadiin ee isaguna taageera kooxda xuutiyiinta ayaa ka soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxdaasi inay codsadeen in qaramada midoobay ay ka dalbato dhaxal sugayaasha imaaraadka iyo sacuudiga maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zaayid inay xabad joojinta oggolaadaan oo ay kormeeraan warbaahinta carabta iyo kuwa reer galbeedka ayaa iyaguna sheegaya inay socdaan wadahadallo hoose oo ku saabsan sidii maxaabiista la isku weydaarsan lahaa taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii Sweden mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Taciz ayaa telefishanka Al-Hurra u sheegay inuu ku niyadsan yahay in la sii dayn doono in adeerkiis oo ay xuutiyiintu 2 sano haysteen قبل 2 وهو يعاني من حالة نفسية وهو مر من صنعاء إلى تعز في أحد الباصات وقاموا بتفتيشه 2 sano ayuu xiran yahay waxaanu ku furan buuq dhinaca maskaxda waxa uu ku sii jeeday magaalada Sanca isaga oo Taciz ka baxay baabuur bas ayuu saaraa markii xuutiyiintu ay qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen labada dhinac ayaa kala haysta maxaabiis ka badan 15,000 oo qof kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in ay isdhaafsadaan